kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo ixtiraamka mudanow caalamka meel walba oo aad ka joogtaan iyo xilli walbo ay idiin tahayba waqti wacan waayasan halka aad nagala socotaana waa sir iyo caad ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal horleh wad mahadsantihiin dhammaantiinba meel walba oo daafaha caalamka aad kaga sugantihiin iyo xilli walbo ay idiin tahay jawi walbo aad ku jirtaan waxaan rajaynayaa waqtiga inuu idiin hagaagsan yahay markaana aad ku jirtaan baraare iyo bashbash iyo barwaaqo haddii aad ku cusub tahay oo waqtiga noola kaa kulmiyena subscribe noo saar oo naga mid noqo oo nagu sharfa muuqaalkana sida ay u dhantihiin bal la garaya siina sheer garaya oo asxaab badan la wadaaga mar walba waxaan halkan ku wadaagi doonaa barnaamijyo markaasi yacni arrimaha bulshada ah sida in aan fanaaniinteeni waxyaabaha ugu dambeeyay dhacdooyinkii la yaabka lahaa ee markaas Soomaalida dhexdooda ka dhacay laakiin ku sugan daafaha caalamka iyo wax walba oo markaas aan u garanno in laga hadlo ay mudan yihiin inta kalena waan iskaga socon doonaa maanta waxaan inoo hayaa su'aalo badan oo kasoo laabtay showgii ugu dambeeyay kama dambeyn doono mid baa kasii dambeeyay laakiin waqti xaadirkaasi ugu dambeeyay farxiyo fiska loo sameeyay iyo cajaa'ibyo badan oo soo socdaan oo markaa ay dad badani la yaab iyo tacajab ku noqon doonto laakiin reer sariicaad ah sii jeclaystay inay sii ogaadaan oo markaasi ay markaa la yaab aysan ku noqonin su'aalo badan ayaa fiidiyoyada qaar kasoo laabtay waan idinla wadaagi doonaa barnaamijkeena ayuu ka mid noqon doonaa ee marka waxa aan ugu horeeyo oo aan ka hadlaya ayaa waxa ay tahay siday wax u jiraan farxiyo fiska ayaa waxaa loo qabtay show aad u weyn marka ay dad badan kasoo qayb galeen halka dadka qaarna laga waayo oo marka ay dadka in badan isweydiiyeen halka ay ku baxday ama ay ku maqan tahay maadaama ay fiska iyo qofkaasi aan la kala garanayn oo marka in badan la isku arki jiray had waxyaabaha jiro intaa taa ku galin ka hor muuqaalkii gariirka lahaa waa kan ay baldaawasho wacan waxaan qaadaynaa wadda macjacay nafta dhahawaco dalrogay jirkeede buuxiyo qalbiga sidaas oo wada aragteenba waxa ay markaasi heesteedii caanka ahayd ku qaaday cod caadi ah iyadoo markaa taageerayaal fara badan oo ku sugnaa meesha ay iyaga qalbiyan su'aalaad badan isweydiinayeen farxiyo waxa ay ogaayeen kala daadsan dagaal ku jirto dhibaato u sugan tahay yaaban halka ay wax ka bilaawi lahayd sida ay wax yeeli lahayd iyo mar walbaba waxa ay markaasi samayn lahayd ku yaaban ayay ogaayeen waxay arkeen farxiyadiida dhaxda u yaraato mucjisadeedii la soo baxday fankana aad ma moodaysaba inay hadda dib ugu soo biirtay dad badanina ay ka dhaqaajiso habeenkaas dhiigga ay dhuxday runtii guurka ay guursatay farxiyo sida caadi runta ah waxa ay ku weyday waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin farxaddii ay haysan jirtay iyadoo inta badan aad ku dareemi jirteen iyadoo murugaysan ama markii ay social media video soo dhigayaan iyadii xaajigeeda ama iyada iyo dad kaleetaba farxiyo waxaa wejigeeda si xoogan uga muuqan jiray murugo iyo dad badan isweydiiyeen oo ay lahaayeen markaa xaggee ka baxday farxiyo farxaddii lagu garan jiray iyo qofnimadeedii iyo wixiiba xaggee ka baxeen oo inta badan dadku waxay arki jireen farxiyo murugaysan tawaalacsan tabardari ay ka muuqato runtiina tabasho badan wejigeeda uu ka muuqdo laakiin in badan dambe waxaa maanta intaan dambe la arkay farxiyo oo farxiyadeedii hore kusoo laabatay oo runtii tacajab iyo layaab leh haddaba dad badan oo reer Mareykan oo fanaaniin isugu jiraan waxa ay u kaceen sida ay garab istaagna ugu muujin lahaayeen una farxad gelin lahaayeen walaashood farxiyo fiska oo ay garabkooda kasoo muuqan lahaayeen halka su'aasha ugu badan oo fiidiyoyadeeda kasoo muuqatay ay saddex tahay oo aan ku kala sheegi doono midda ugu horeysa iyo midda ugu dambe iyo midda dhexe iyo midda ugu horeysaba mid ka dhacda ma lahan waxaanse kugu hormarayaa waxyaabaha laga soo dhex saartay iyo waxyaabaha markaa runtii jiray ta koowaad haddii aan ku bilaabo farxiyo fiska waxaa loo diyaariyey hadiyado waali ah laakiin lagu guddoonsiin doono xafladan xaflad ka dambeyn doonto waa mid ka dambeyn doonto tan ayaa lagu guddoonsiin doonaa waana waxyaabo tacajab leh oo looga mayri doono qalbigeeda waxyaabihii soo maray ee murugada lahaa dad badanna ay la yaabi doonaan markii ay la kulmaan ayaa soo socda oo ah in dahabkii ugu xaddiga badnaa nolosha qof bila'aadama gacantiisa la geliyo in loo diyaariyey farxiyo fiska gacanteeda kaawaygaasi waa kow sooma tan labaad ee markaasi dadka la yaabka ku ahna waxa ay tahay farxii kaba yar halka ay ka baxday
maadaama ay ahayd qofka ugu dhowaa dadka runtiina aad ay markaa ay saaxiibo u ahaayeen qof walbana ay aaminsaneyd haddii ay maraykan tagto in farxiyo kaba yare in meesha lagu arka ay laazim tahay haddana sababti loo waayey oo gebi ahaanba loogu arki waayey meesha ayaa su-aal fara badan ay dib ugu soo laabatay waxa ayna dadka inta badan ay leeyihiin xilligii ay jahwareerka ku jirtay farxiyo fiska kaba yare waxa ay siisay talooyin badan xitaa darteed dagaal ayay u gashay laakiin halkaasi farxiyo fiska waa ay kasoo naasa cadaan weyday oo meesha waa ay kasoo dhalaali weyday oo waxa ay u muuqatay qof kusii qanacsan la joogitaanka mubaarak oo markaa ay iyadana u arkaysay dhibaato halkaasina dagaalka ay u gashay darteed wax miro dhal ah ay ka weyday sidaas darteedna ay banaanka ka istaagtay ilaa iyo up to now-na aysan wax wada hadal ah oo markaasi jira aynan jirin oo labadoodaba ay markaa u dhexeeyo dadka laakiin su-aasha waxa ay isku weydiiyeen maadaama ay maraykan ku sugan tahay kabayarana ay saaxiibadeed ahayd adeerteedna ay ahayd sababtii ay ugu soo dhinac muuqan weyday ama looga waayey meesha iyadoo aan ognahay in fanaaniin aad u fara badan oo runtii axad dhaaf ah ay meesha imaadeen haba ugu horeeyaanba labada fanaan ee mataanaha ah ee lamaanaha caashiqa ah ee runtii nolosha isku mideeyey hodan cabdiraxmaan iyo markaa iyo xaajigeeda mursal dadka laakiin waxa ay markaa su-aal ka keeneen oo isweydiinayaanna sababtii ay markaa kaba yare u muuqan weyday in ay tahay in ay markaa waxba aysan yacni aysan waxba isku haynin oo ay u kala dhan tahay oo banaanka u kala taalo oo markaa wax salaana aysan jirin saas darteedna ay u imaan weyda showga iyada markaa lagu garab taagnaa ka labaadna migaysin ta saddexaad ee markaasi showgani uu soo banaan dhigay ayaa waxa ay tahay dadka inta badan su-aasha ay isweydiinayaan ama haddaad aragtayba aad ku aragtay social media ay dib isku weydiinayaan waxa ay tahay ninkii odaga ahaa ee ilka case qays waxa uu jag iyo rax ku yahay gabadhan iyadoo ay markaasi jirtay xan hore oo ahayd in ay markaasi berisamaad inta aynan isguursan naciimo joker ay ka dhexeeyeen ama jacayl wadaag ay ahaayeen iyada iyo ilka case saas darteedna ilaa iyo maanta gocasho iyo markaasi gaaxasho laga dareemaya ninka odaga ahaa waxaa jira muuqaal markaasi soo galay social media isagana oo isagoo ag taagan ay intay imaato hodan cabdiraxmaan ay dib u tuurayso halka taa ay dadka uga fikirayaan waxaa ka dhoweyd waxaa jira muuqaal kaleeto oo intuu soo qabsado xaajiyadiisa garkeeda garabkiisa saaranayo taasoo muujin weyn u ah in uu maanta noloshiisa iyo qanaaciisaba ay tahay in uu naciimo joker nolosheedii number 1 u tahay number 2 u tahay number 3 u tahay halka saaxiib uu ka dhigtay xaajiyadiisa ay tahay wax walbana ay u tahay saddexdaasba muuqaalka ayaa laga soo dhex saaray waxaan rajaynayaa in aad maanta wax ka fahantay oo aysan jirin wax kugu laaban laakiin wacdarada soo socdo waa ay ka darnaan doontaa wacdarooyinkii soo maray social media gariir iyo gaf iyo waxa u aragtidba wuu gariirin doonaa waxyaabaha soo socdo waynu arki doonaa waynu u joognaa aad baad u mahadsantihiin dhammaan reer sariicaad meel walba daafaca caalamka uga sugantihiin waxaan idiin rajaynayaa farxad in aad ku noolaataan haddii ay tahay la kulankaagii ugu horeeyana marka waka xaggaaga naga qurxi fideoga la gareeya dhammaantiina sheer gareeya intaan midxii ku kulmi doono dhammaan waxaa idinkaga sii tegayaa nabaadiino